tobankan u dambeeya bisha iyo qofka muslimkaa sida loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto. awalan ramadaan waa fursat alcumr. haddii ilaahay ramadaan ku gaadhsiiyo waa fursad aada u qaaliya. haddaad tobanka dambe sii gaadhana waa fursad tii ugu sii fiicnayd. haddii habeenkaa ku jira leylatulqadriga alla ku waafajiyana dee waa cimrigaaga wax ka badan oo cibaadaha. qofna cumrigiisa dadkeennan caadiga kama suurtagal aha dhowr iyo 80 sano inuu cibaado unu fadhiyo aanu wax kala qabanin. habeenkaasi cibaadadaad samaysaa saasay la mid tahay. sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam agtiisa waxaa lagu soo qaaday oo war baa loo keenay saxaabadu wadwadeen oo ah axadu saxaaba wuxuu ku riyooday 2 nin oo soo islaamay oo isaga la soo degay oo dabeetana dagaaladii nabiga ka qayb galay oo midi dagaaladii ku geeriyooday oo kii kalena sanad ka dambeeyey sanad dabadii uu dhintay oo markaa intuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo. kii dambeed dhintay ayaa loo hor yeedhay kadib baa loo yeedhay haddana kii horreeyey. anigu markaan soo kacayna waxaa laygu yidhi adiga weli waktigaagii maaha. sheekadii buu saxaabada u sheegay. dabeetana waxay la yaabeen ninkii shahiidka loo tirinayey oo weliba lalahaa markii hore nin dadaal badan buu ahaa kii ka dambeeyey inuu haddana ka badan yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi miyaa la yaabantiin arrinta haa bay idhaahdeen. wuxuu ku yihi alaysa qad makatha hada bacdahu sana oo kani miyaanu ka hore sanad ka dambeyn buu nabigu yidhi. haa bay idhaahdeen. oo ramadaanna sooma soo gaadhin buu nabigu yidhi oo intaasoo salaadoodna masaajidkan kuma tukan sanadkii. haa baa la yidhi. wuxuu nabigu yihi kaa hore iyo kan dambe inta cirka iyo dhulka udhaxaysa in leeg baa udhaxaysa. waxay culammadu yidhahdaan waxyaaba ugu weyne uu nabigu tilmaamay waa salaadihii masaajidkiisa lagu tukaday iyo ramadaan. dee ramadaan oo habeen leylatulqadri ku jiro oo haddii ilaahay waafajiyey dhowr iyo 80 sannadood oo cumriya u dhigantaa. waxaan xadiidka usoo qaaday inaan haddii tilmaamay inay fursad tahay in la dayaco marnaba aanay ahayn. fursaddaasi waxay u baahan tahay sidii looga faa'iidaysan karee kasta in looga faa'iidaysto. waxa ugu badan ee lagaga faa'iidaystaana waa in cibaadada iyo daacada ilaahay iyo qurbadiisa dadaal badan lagu bixiyo. walidaalika bay caaisha xadiidkii imaamu muslim warinayo waxay nabiga ka tilmaamaysay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii gayri. tobankaa dambe wuxuu dadaali jiray waxaanu intiisa kale dadaalin. yacni dadaalkiisu wuu ka badnaa. xadiiska saxiixeynka ku yaalana waa ka ay tilmaamayso kaana nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zara wa axyaa leyla wa ayqada ahlah. haddii tobankani soo galaan bay caaisha leeday tobanka u dambeeya ramadaan hadday nebiga u yimaadaan nebigu sidiisaba 9 ramadaan buu soomay. tobankaa u dambeeya haddii ay soo gaadhaanna bay tidhi shadda mi'zara guntiguu adkaysan jiray ama halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu dhiishas kaga dhigay. markaad shaqo rasmiya aad rabto inaad si xoogan u qabato waxa ugu horeeya aad qabataa waxa weeyaan inaad maryaa adkaysato si aad shaqada si fiican ugu qabatid. kaa culimmada badh baa ku fasiray oo le yacni cibaadada dadaalkeedu badin jiray markaa weeyaan. culimmada badhkoodna waxay ku fasiraan masaladii ictikaafkiiyo lasii xidhiidhaysay ee ah haweenka inuu ka dheeraan jiray oo haweenku ka dheeraan jiray macnaheedu waxa weeyaan markaa cibaadaadku haweenkaaga inaad u tagtaa nebigu wuxuu ku tilmaamay wa fii badci axadikum sadaqa ajar bay ahayd. laakiin macnaheedu waxa weeyaan tobanka kan cibaadadu siday u kala ajar badantuu mudnaan u kala siin jiray. marka waxyaabihii mubaaxaadka ahaa ama cibaadaadkii fadligoodu aanu badnayn intuu ka tago oo ay ka mid ahayd haweenka iyo mucaasharadoodu ayuu wuxuu u baxayay maxay cibaado maxda oo ah
inuu ilaahay subxaanaه watacaala u banbaxo. idan waxaa lagu tilmaamayaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam guntigu adkaysan jiray. siiba riwaayadda muslim bay saa usii sharxaan oo ah wajadda washadda miisarahu, ay leeyihin wajadda fi طaacaat ayuu ku dadaali jiray, shadda miisarana markaa waxay ku fasiraan tan dumarka inuu ka dheeraan jiray. ayan kaanat saa doontaba axaadiista u fasiro, labada macnoba waa laba macnoo jira oo nusuusta kaleba tilmaamayso inuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam cibaadaadkaasi si gaara ugu dadaali jiray. wa axyaa leyla, habeenkiisana wuu nooleyn jiray. wa ayqada ahla, haweenkana wuu toosin jiray. axyaa leyla, habeenkiisuu nooleyn jiray. oo maxaa habeenka nooleeya lagu nooleynaya, ama habeenka intee buu nooleyn jiray? labaduba waa la isweydiin karaa. ugu horeyn caaisha waxay leedahay walaa aclamu nabiy اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi leyla walaa salaa leylata ila الصubx walaa saama shahra kaamila gayra ramadaan, rawaahu muslim. iyadu waxay tilmaamaysaa anigu garan maayo bay tiri, waa iyada ogaalkeeda. anigu garan maayo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo qur-aan akhriyey habeen ku dhameeyey, ama habeen oo dhan tukada ilaa subax laga gaadhayay, ama bil soomay dhammaystirankeed aan bisha ramadaan ahayn. macnahaasi waxaa laga fahmayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkiisa wuu nooleyn jiray. horta habeenka waxaa lagu nooleeya waa cibaada, oo cibaadadu waa waxa ugu badan ee aayaadkan ay ka waramayaan. waayo nooleyntuba waxaynu arki doonaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam siduu u tilmaamay. abu dar ridwaan ullaahi calayhi saxaabiga la yidhaahdaa, xadiis isagana sheekh alalbani leeyahy waa asaxay, ay warinayaan abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaji iyo taxaawi iyo ibn abi shayba iyo culamo badan uu ka soo aroorinayo, saxiixna uu ku tilmaamayo. waa xadiidka abu dar tilmaamayey waanu soonnay oo nebigu salaadna ma tukinin markii 7 harhsanayd, 7 habeen yacni ramadaan markay ka harhsanayd ayuu kacay oo na tukiyey. haddana namuu tukinin kuwii ku xigay. markii thuluthul uu harhsanaa ilaa iyo thuluthuleyl buu na tukinayay buu leeyahy habeenkaa hore. habeenkii 6aadna ma tukinin, waa xagga dambu ka tirinaya. habeenkii 5aad marka yacni 5 ka harhsanayd bisha ayuu na tukiyey. habeenkaa dambena ilaa shatruleyl buu na tukinayay, ilaa habeenka bartankiisii. markaasaanu ku nidhi buu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yaa rasuula اllahi low nafaltanaa baqiyata leylatina, maad cibaadada noogu wadad caawa habeenka oo dhan maad ka dhigtid. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay farsamo kale, inahu man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla. ninkii imaamkiisa la tukada sunnadiisa taraawiixda wixii la mida, imaamka la tukada ilaa iyo imaamku uu ka tegayo salaada dhammaysanayo. waxay yidhahdaan culammadu xataa haddaad habeenkii kacayso imaamkii aada la tukatayna witirsanayo, wax fiican isaga la witirsato, inaad isaga ka tegin intuu salaada dhammaynayo. salaada markuu dhammeeyo ayuunbuu xadiidku kugu dabaqmayaa bay leeyihin. ninkii imaamkiisa la tukaday ee salaadii la dhammaystay, kaasi waxaa loo qoraa buu nabigu yihi kutiba lahu qiyaamu leyla, habeenkii oo dhan taagitaankii baa loo qoraa. wuxuu leeyahay habeenadii ku xigay haddana nama tukinin, laakiin markay 3 habeen ka harhsanayd ayuu haddana nebigu salaad noo kiciyo na tukiyey. xataa reerkiisa iyo haweenkiisana wuu u yeedhay habeenkaasi. dabeetana habeenkaa dambe wuu nagu waday buu leeyahy ilaa iyo xataa takhawafna alfalaax, ilaa aanu isnidhi suxuurtii. raawiga xadiidkaa weydiinaya wama alfalaax mala suxuur, ilaa aanu isnidhi suxuurtiiba weydinka tegi doontaa. yacni habeenkaa 3aadna wuxuu tukiyey salaad ka dheer. habeenkii hore thuluthuleyl buu tukiyey, habeenkii kale uu tukiyeyna wuxuu tukiyey nus, habeenkana wuxuu ku waday ilaa iyo suxuurtii aanu isnidhi weydinka tegi doontaa. kaasi waxay tilmaamaysaa sidii uu nebi moxamed habeenada u nooleynayay, ama axyaa leylahu
من حيث الزمان marka laga eego أحيا الليل إحياء الليل waxay culimadu leeyihin waa بالعباadة كلها waayo qofkaan cibaadaysanaynin qof dhintay weeyaan qofka hurdaana bay yidhaahdaan dee waa meyd waman kaana maytan faaxiyaynaahu ayuu ku jiraa مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت نواكي رواية بخاري المامسي رواية إمام مسلمنا مثل البيت الذي يذكر الله فيه إمام البخاري وحلي نكي إلهي حصة إذا كان إلهي حسين مثال كود ووحنا ولي واحد طيب إذن إحياء الليل وحي ليين وذكر الله أيا كان أما الصلاة هالنوضة أما ورد هالنوضة أما هالنوضة محل هذا قرآن أخرس هالنوضة وحلالي وحي عبادات كاسة إلا سمي وقيام الليل وإحياء الليل ولذلك باب فقهاء قاركود قيام الليل كوحي كتل بابا وحي عبادة الله قاع وحي دورة هالنوضة هذا صوت وسطو وردي له أما قرآن أخرس أما كان قيام الليل والله ركر أبيلي فقهاء قاركود habeenka oo la kaco idan wuxuu habeenkii ku nooleyn jiray cibaadadaasi salaada oo ta quraanku badde ku amaanayo dadkii wanaagsanaa tatajafa junubuhum an almadaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fama kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka jannada looga yeedhay wuxuu ku tilmaamayaa habeenkii inay in yar seexan jireen ama dhinacoodu in hurdada diidi jiray ama ay tukan jireen saxaabadii nabigana ilaahay quraanka markuu ku ammaanayay nabi maxamed risaala ammaan ugu filan maxamedun rasuulullah baa ilaahay yidhi in alla doortay oo basharkoo dhan laga doorto rasuul laga dhigay ammaan taasaa loo tilmaamay ama saxaabada ilaahay markuu tilmaamayay waladiina aamanuu waladiina macahu ashidaa'un cala alkufaar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلهي وحكوت المامي صدح صفاء ومدي أي تهي علاقة مسلم كلاليين بدنا علاقة قال كلاليين بدنا علاقة إلهي لليين صحابة الصفات دو وحويان قال لمن اسكد عيبي هاي ميال ساري الشداء على الكفار مركي مسلم كتمادنا رحماء بينهم بإلهي أهل السنة والجماعة وحيد هذا صفدود جماعة اللي شيء ومرك إن حريسي شرتهم بين هذا سنة نوين طريق إلى رحماء بينهم بيهاي كوا سنة حريستا أما حديد كإلهي لليين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بيلي هذا كيسين يهيين كوا الركوع سن وسجود سن والراد عينيه إلهي فضل سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام ننكي دوني إنه منازشها قلد الصراع تغو والنبي دي الصالحين تي الشهداء دي كوا إنه للرفيقه صحابي يرايا الربيع كعب بن الربيع مركي نبي ويديستي نبي وشقيي دبتنا نبي وحده محام خفسيه أبا القطب والرباه يويديسو حديث الرواية كيسوا صوت الشنية وكان أخيرا وحو ويديستي مرافقتك في الجنة بولي وأنني يروا همسر له جنة إنا نقول الصاحبة بندوني يا بولي جنة ندي بوصصك أنبياء هي رسوشة هي كوحدة سميشي قليا هي هديبا أبقى مسلم كعادي هي ميشي قليا اسكمد معها وكان أنا وحو طلبنا يا نبي محمد الرفيق الله نقضى عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من نقوله تاوحانا هاي ما ويديس ماي تاسن دون يا أبوي نبي عليه الصلاة والسلام ركاب حقولي فاعني على نفسك بكثرة السجود وحادي يقول قرقرتا نفتاضة سجود بدني إن صلاة بديسو سجود بعد مقام كاسر دونيسو إذا مقام العليين عند الراضعين يسوين صلاة ديدو بدطها صلاة ديسو أي بدطها نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سيدي نولين جيرين
أنس بن مالك واكت المام يسدي سبا النبي وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيت بولي حديث بخاري النبي عليه الصلاة والسلام مدون تدبوري أنا دركتها بينكي وقت كستا سقطت كان يوادرك وقت كستا سقط هردنا وادرك معناه يدو حويان حق هرو كنت كنجري هدو دونه وحق الدنبه وكنت كنجري ودحده وكنت كنجري هبينكي ورنا دتكتو ولذلك بقى عائشة حديثك كلا الصحيحين كويا لواطله من كل الليل قد أوتر رسول الله هبين كودن قيب ورايك طيب النبي قوة ترصدي هبين كحقي سهرين تانو سيحنين بقوة ترصدي هبين كبرتن كي سوا وترصدي هبين كدبيا قدي سنوا وترصدي فانتهى وتره إلى السحر بيتني واقي سيد دنبال لكن وحو بطيئين الصبحي يعني وقت قود دنبال هبين كان إنه وترصدى أبو بطيء وأنا كي عمر لها قفكي شعل فضل بدنده والتي ينامون عنها أفضل تهبين كي الله سيحداينك فضل بدن تهيبو تلمامية قرآن كان واكا إلهي والمستغفرين بالأسحار هبين كي طبعا كان دم محاتو كان دونتا أئمة بد وولي معاصرين تابا قاركود اسكو أدكيين ويرى كوب يتبنون موياني أما وقبضنا صدح يتبن موياني وحكا لما تكن كرو ninkan raba inuu sunnadii nebi maxamed ku daydo tiradun iyuu kaga dayanee tirada iyo sifadaba markaa ha ku daydo yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 11 13 9 ka yar intaba waa tukaday laakiin dee wuxuu tukan jiray teennan ma ahayn waa kuwii saxaabadii salaada ku xidhatay waa garanaysaa wixii qabsaday waa weyn oo saxaabiyiin ay yidhaahdeen waxaan ku hamiyey inaan ama ka baxo ama fadhiisto iyo wax la mid ah هذا واحد قياستا ركعت لغو أخريي بقرة يا النساء يا العمران صدح دا سورة دو مسجس شنجس مركا ركعت لغو أخريي شنجس قياس وهل ركعو شنجس مثال أخرية رضا اسكا عادي قال ولبا النبي وحي هيدي انتو آيات كسكوت تاغو وولبا aayaddu hadday cadaabka warramaysa ilaahay ka magan galo hadday tasbiix ku saabsantay isagu sidaa dheer buu waday laakiin sidayna gaaban haddaynu wadno waa nus saac shan nusa saace waa imisa laba saac iyo badh ragcad loo taagaya qiyaas haddaad hadhow tidhaahdo may 11 buu tukaday ood 5 daqiiqo ku tukato oo aad tidhaahdo anugu sunnadii baan raacay taasi sunno noqon mayso sunnadu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma badin jirin ragcaadka sida ka muuqata laakiin sifadeeda ayuu badin jiray sidaa awgeed ayay caaisha waatii lahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo keyrkii toona 11 ragco kama badin jirin 4 buu tukan jiray hay weydiinin bay tidhi wanaaggeeda iyo dherarkeeda iyo baabka ayada hayga waraysanin dabeetana 4 kaluu tukan jiray wanaaggeeda iyo hay weydiinin iyo dherarkeeda kadibna 3 buu tukan jiray فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إذن أيها الأحبة ما ها قيام كيسا قرى واحد داري حديثك صحيحين كصار رمحوت المامية سجودي سو إن كنت نايضا الأخريا به كنت نايضا حوالي نص جس لدو ذي ويرتهي وجس ثلثي كنت نايضا يعني انتو تاغنا انكو ددوم بو هدنا ركوع سنان جري سيدا اوغيد صلاة النبي هداد الربطه واتا نوع عصيه اما ترق عدها بدن له علماء waxay leeyihiin hadii naqsi uu ka gala dherarkaasi inaad ragcaad ka badsataa oo salaatul leelku sideedaba waa mathna bay qabaan marka waa mutlaq bay qabaan saasan ay jamhuurul ulama ugu badan yihiin ama culimadii hore ugu badan yihiin إلى أحدهم وكسر نقلنا ابن عبد البر إنه لا أجمع العلماء وكان نقلنا أيه إجماع وكسر نقلنا أيه وهي علماء إلى هذان عبرض الترادة ما هرج عضها عبرض والزمن كاد له يرتاجنيت
والزمنك أما الرقعات كوبان كهر تاجنو أما الرقعات تربدا كهر تاجنو عبرد وحويا بين علماء وقبائل زمنك محي كدلي شدين محي كدلي شدين آيات كان إلهي سبحانه وتعالى ونبيك كتل المامي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نبيك واحد لقو يري هبينكي استاج إن يرموياني مركز هذا واحد يري نسكي استاج أما إن يرك يره إذن واحد لقو ورما يا حسابتك قيامك وكوص على وام حي والزمن كلا تاجنان يبيلين أنت وقفك الربائل تاجناده وحي كلو كدلي شدان إن الزمن كمسألة الطهي حديث كيسنا الصحيحين ككويا لي النبي عليه الصلاة والسلام وطلمامي صوننا صون كي داود بوفيعنا صلاة داود أي إلهي وجعلي صوننا كاسال لو جعلي صون كداود وحاين وهبين مالنا صومه مالنا أفره أما صلاة داود محيهد وحاو كنت المامية كان ينام نصفه كان ينام نصف الليل إنه سيحن جري هبين كبركي ويقوم ثلثه نبي الله داود نص كهرة وسيحن جري دبتنا ثلث أيو سوكي عجري وتكن جري دبتنا وينام السدسة سدس كالدنبه يعني نص كالدنبه وثلث يسدس ليسوقي مركا نص كهرة وهرد جري نص كالدنبنا صدح ميلاد ميل بسوي جدي جري لح ميلاد مركا هبينك الله غيبيا ميلهنا وهرد جري مركا حديث كان الناس نوحوا تلمام إن زمن لقوا حسابنا صلاة دي داوود إلى هيج على مركي لقوا الرمي هنا لقى ما ورمين أنتوا رجعتوا تكجري مسدوا تكجري وح لقوا الرمي زمن كو تكنجري قرانك إلهي مركو كور رمي أنا وحلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة آناء الليل والليل ساعة الليل نكتك ساد ردد يا ابن حجر العسقلاني يا ابن تيمية يا وحي ليل إن النقص في صفة القراءة يزاد في عدد الركعات إليه نقص قال الصفة قراءة قابطي درادد عدد كوالو كردين كرا ولذلك بعض علماء إني هنا مسلمين تاها قار دوري سدن تكذي قار دوري أفرتن تكذي حرمين أساسا لا تكون شيء إيه وحلا ميدا إيه دوري الله باطن سيدا أوجد هذا سلا ذي السنة دي طبقنا تيني بجميدو اكتكو صلاة قاقان تربطني لكن سجود دير أو قراءة دير أو صفة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصفة أو تكريننا هذا بتصن كرتو بتصو وحيات بتصطابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان اللي يرد أمر كيولها حق سر هذا طرفتين التمادو فإني على نفسك بكثرة السجود والليل سجود بدي سجود الله بدي وصلاة لبدي من قام مع الإمام حتى ينصرف نوى الليل مركا أنت دون تبتكو صدق يلا واتنك الشيخ الباني ضعيف يا علماء كلنا هو صحيح سواء ثابت بين سند كنت الماء أيا كان خلاف كافقي كا وحبيد قليل ما هي لكن هبين كا طبعا كا هبين أنت أد نولين كرتون نوله هبين كا أنت أد نولين كرتون نوله نولين توغيري وين اللبض الصلاة ترتكو جمع كتكتا وحديثك عثمان لقورين يا إمام مالكي يا إمام مسلم باي صوصارين يا أبو داود باي الترمذي لو سنوا صوصاره فاضل بك لا يرقد السن وقت المام يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كل رواية مسلم رواية أبو داود ده وحط المام من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل على كل حال ويتفسر يانوني هداد جمعها ليشاء عشاء وحد أردقانتا نين هبينك نسكي سوچي دو تكني هداد صبح حدنبها ليشنا وحد أردقانتا لبادي بمركاد هليشة هبينك يودن النوليني تامعني هي دوام محي مرنا بيدي انت تهجدين صلاة صبح جمعيت كاكحيو dadka badhba sunnada u dadaalay hadhowba jamci subax u dhaafaya kaas wax badan maad kororsan baynu odhan karnaa labada waxa
kaaga ugu yari waa inuu noqdaa labadaa jamac inaanay horta ku dhaafin. haddaad rabto habeenkaa inaad noolayso ugu yaraan horta jamaca subax iyo jamaca cishe, labada jamac ee salaada jamacu waa inaanan ku dhaafin. wixii kale aad markaa tukan kartee ku noolayn kartana ama taraawiix u bixi ama tahajud u bixi ama qiyaamuleyl u bixi, magaca doonta adigu u bixiyo wixii aad tukan kartee kalena markaasi tuko. acmaasha jaliilkee uu nebigu samayn jiray tobankan habeen sida uu nusuusta qaar ku soo aroortay waxaa ka mid ah inuu ehelkiisana kicin jiray. asliyanba dee ilaahay wuxuu yihi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha, laakiin dee salaadii faralka ahayd bay taa hore ahayd. laakiin tan sunna ahna waa kii xadiidkii sheekheynku warinayeen tilmaamayey intuu gurigii wiilkii u sodaga u ahaaye inantiisii intuu tegey alaa taquumaani fatasalliyaan uu nebigu lahaa, war maa kacdaan meedan kacayninoo salaada tukanay nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ama umu salama xadiidkii fitanka ka warramaya waa tii lahayd habeen buu nebigu soo kacay isagoo argagaxsan, dabeetana wuxuu ihi subxaana allahi maada unzila min alleyli min alkhazaain wamaada unzila min alfitan. ilaahay baa xumo ka dheere caawa maxaa fitan soo degay iyo khasnadaa ilaahayba wanaag ka soo degay. yaa kiciya buu nebigu yihi kuwan guryahan hurda, isagoo haweenkiisa u jeeda si ay u tukadaan buu nebigu yihi likay yusaliin ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira. caaisha waxay leedahay wakaana yuuqidu caaishata idaa araada an yutir, marka uu rabo inuu witirsado caaisha nebigu calayh salaatu wasalaam iyana waa kicin jiray. calaa kullin tobankan dambe guriga oo dhami inuu tukadaa fiican. hadaad reerka oo dhan kicin karto ay tukan karaan wixii tukan karaa inay wuxuun ka tukadaan, marka ama xagga hore ha ka tukadaan oo hadday sii qadintaanna waxba ka xumaan maayaan, hadday dhexda ka tukadaan intay toosaan haddana seexdaanna waxba ka xumaan maayaan, hadday xagga subaxa xigta intay kacaan tukadaan oo hadhowna subaxdoodana ku darsadaanna iyana waxba ka xumaan maayaan. saddexda dhinac dhinacu doonaba waa laga tukan karaa. culamada qaar baa laakiin ahaa tahajud ereygaa haddaad isticmaasho xadiid saxaabi bay soo qaataan oo ah wuu seexan jiray oo tukan jiray oo seexan jiray oo tukan jiray dhowr goor ku celceliyay erayada. marka wixii la seexdee la tooso ayuunbaa tahajud la yidhahda bay dhahaan. marka isagu wuxuu diidan yahay habeenkao dhan haddaad iska soo jeedo sidaa kaasoo kale tahajud ma la odhanaya calaa ra'yihi, marka kaasi tahajud maaha ee waa qiyaamuleylkii un. calaa kulli xaal alfaadda tani macno badan samayn mayso inaad tidhahdo waa tahajud iyo waa qiyaamuleyl iyo waa taraawiix inaad tidhahda macno samayn. waxa macno samaynaya waxa weeyaan inaad ilaahay u kacdo tukato, adigu dhankaa doonto ka tuko ama waxaba wada kac ama qeyb kac inaad tukataaba fiican. tobankan u dambeeya waxyaabuu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah shadda mi'zara, oo haddaynu qaadano tafsiirkii ah walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid. alla mubaashiroonina baa la yidhi idinkoo maxay masaajidka jooga, marka inuu ictikaafo. cabdillaahi bnu cumar xadiidka uu warinaya saxiixa waa kale kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaan. caaishana xadiidka saxiixeynka ku yaalla waxay leedahay kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaana xataa tawafaahu llah uma اctakafa aswaajuhu min bacdi. riwaayad kaloo bukhaari warinayana waxay leedahay ana nabiya sala allahu alayh wasalam ictakafa fi lcaami aladii qubida fiihi 20 yowma, inuu nebigu ictikaafi jiray. ictikaafku waa maxay? ictikaafku waa inaad masaajidka isku xidho. maxaa la yska xidhayaa? waxaa la yska xidhayaa wixii mubaaxa ahaan jiray marka hore ee debaddaas suuqa iyo joogistiisu marka hore mubaax bay ku ahay, gurigaaga iyo hoyaatinkiisu mubaax bay ku ahay. kaas baad ka soo xidhmaysaa. maxaad u xidhmaysaa? cibaada maxdiya. dadka barh baa intay ictikaafaan sheeke iyo mobile iyo baabka ku jeeda oo maxaad ka soo xidhaysay markaa? waxaa lagaa rabay inaad dabadda uga timaadaa waxay ahayd inaad adduunka kale iskaga tegtid, ilaahay uun inaad la munaajootid khalaas. wixii kaleo dhan intaad iska dhaafto
إلهي سبحانه وتعالى مناجات كيسين دو بحدد مركا اعتكافك وين مساجد اللي قالوا oo dabeetana lagu ictikaafo salaadaha ku tukatid quraanku akhrisatid adkaar iyo awraad wadid salaad tukatid wixii cibaadaadkaasi uuna inaad shaqadaadu noqoto wixii aan cibaado ahayn inaad shaqadeeda iska dayso marka waa inaad hurudo waanad hurdadana badsanaynin sideedaba ramadaantu calaamaadka ay leedahay waxa kamid ah culimadu yiraahdaan laba wax oo bini aadamka mushkilad ku abaa laga yareeyaa cunadu kow innaga marar baaba cunada ramadaanta la cuna ka badataa tii waqtiga kale la cunay ramadaanka waa in miisaankaagu dhinmaa ma aha in miisaankaagu kordho ramadaan waa in miisaankaagu hoos u dhaca yani waa inaad barataa inaad cunada ka maarmi karto isku day bal ramadaan ثلث لطعامه على الأقل فإن كان لا محالة بالنبي يقول مركي هره waxa la yiri ukaylat aw luqaymat yuqimna salba wax un la furmooyin oo dhabarka ku toosisto laakiin nabigu wuxuu yiri fa in kana la mahala hadii aan laga tagayn in wax la cuno cunadaadu calooshaada marka saddex meelood oo qaybiso meel ha noqoto oo macnaheedu waa maxay cunada gaajada iskaga jabiyo ka kac inagu ilaa dibirto mooyaane kicmayno dibiradu kuma jirto ee waxa weeyaan inaad gaajada iska jabisid saddex meelood oo meel inaad cuntid meel inaad biyo ka dhigatid meel in linafasihi inaad ka neefsatid oo dee sababada laga neefsadaaye laakiin haddaad xoog u dheragto calooshu waa elastica way kala baxdaa diaphragmka xubkan yara u dhexeeya sababka iyo caloosha kor u soo qaadaysaa dabeetana sababka cidhiidhiyoomaya markaa waad neef qabatoobaysaa meel ay neeftii gasho la heli maayo idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saddex meelood oo meel la cunno ku rido meel la biyo ka dhigo meel la ka neefso siiba ramadaanta dadka taraawiixaha iyo waxa kale mararka qaarkood way ku cuslaadaan waayo afurka ay si qayru caadiya u cunaan waa la gaajaysnaa hamuuntu baa lagula dhacaa hamuuntaa control ramadaan ba waxaynu ka rabnay ugu waaweyn waxa ka mid ah inaynu naftan u talin karno naftan in loo talin karo oo baahida ugu weyn ay qabtaa waa cunadeeda haddaad maamusho waxeeda kalena waad maamuli karaysa baahida ugu waaweyn ay qabtaa waa cunno haddaad cunadeeda ka talin karto waxay cunayso iyo waxay iska daynayso waxeeda kaloo dhanna waad ka talin kartaa si awgeed tobankan waxa fiican inaad ictikaafto haddaanu kuu wada suurtoobayn ka war shardi maaha wixii kuu suurtoobayo un ictikaaf hadday maalinta barhkeed kuu suurtoobayso cala almadhabi shaaficina dee isagu saacadaa la ictikaafi karaaba la qabaa marka wixii kuu suurtoobayo waa un markaad soo gasho niyada xidho inaad ictikaaftay ku jir xataa laba salaadood oo qudha dhexdoodna ha noqoto xataa hal habeen ha noqoto laba habeen ha noqoto maalin baad shaqo u baxday waad soo noqotay dib unu xidho hays odhanin haddaana toban kaba fadhihi karaynin adigu sanadkan ictikaafi kari maysid hays odhanin habeen baad ictikaafi kartaa toban baad ictikaafi kartaa labaad ictikaafi kartaa waa calaa qowlkaana waxaabaad ictikaafi kartaa saacado saacado habeenkii ka mid iyo saacado maalintii ka mid kuu doonaya ha noqdo labada waad ictikaafi kartaa marka habeenkana wuxuun ka niyeyso walow inta taraawiixda la tukanayo inaad niyeysatana oo markaad cishaa soo gasho aad xidhato niyeysato bal ilaa iyo intaad sagaalka iyo barhka waa laba saacadood baa laga yaabaa inaad joogayse kol aad labadaas saacadood ictikaafku u noqotana ictikaafka niyeyso tobankan dee shayga ugu qaalisan ee ugu dambeeya aynu tilmaamaynaana waxa weeyaan inaynu habeenkii raadcayno la tilmaamay leylat lqadr التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر النبي يقول عليه الصلاة والسلام طبقا دمك بعض الدونة وليبا وتر كذا نكسي بعض الدونة طبقا إنه الراد عينابا مهمة وطبقا habeen waxaynu gaarka muhiimadda u siinaynaa habeen baa ku jira 3 sano iyo dheeraad u dhigma 3 sano iyo dhowr bilood oo cibaadaha ka war xataa adigu haddaad 3 sano markii hore soo jirtay
intaad cibaadaysanaysa imisuu ahaa 24 saacadood waxaa laga yaabaa 7-8 saacadood inaad hurdo 7-8 saacadood inaad shaqo tagto haddaad 8 kaloo dhan cibaadaysanaysay waa ثلث cibaadadaada haddii 8 kaloo dhan cibaado lagu turiyo waa ثلث laakiin halka kani waa 83 sannadood iyo weliba dhowr bilood 4 bilood ama wax ka badan 4 bilood iyo maalmo la sheega 83 sannadood cibaado ah inay kaa dayacantaa waa doqonnimade waa khasaare aada u weyn ka waran nin cimrigiisii 83 sano khasaaray waa dhib aada u badan weliba 83ku ay yihiin 83 cibaado aanay ahayn 83 layska noolaa un aan ahayn idan habeenkan waa habeen noloshaada wax badan ka bedeli karaa saa daraaddeed habeenkan baadidoonkiisa waa inaad mar kasta u xidhxidhantay habeenkan see loo baadi doonaa cibaada lagu baadi doonaa inaad ilaahay si fiican ugu xidhantid caaisha maxay tidhi ilaahay nebi allow haddaan laba kulmo habeenkan alla isulan siiyo maxaan idhaahdaa bay tidhi waxaad tidhaahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa waxay tilmaamaysaa habeenkaa waxaynu ugu baahida badannay inay ilaahay baryadiisa tahy oo ay ugu horeyso in ilaahay dembiga inaga maydho oo ay ugu weyn tahay aakhiro inaynu guulaysano habeenkani markaa waa habeenkaa uu qur-aanka ilaahay ku sheegay leyla mubaaraka inuu yahay fiiha yufraqu kulu amran xakiim inuu yahay maxay khayru min 1000 shahr mid ka khayr badan 1000 bilood inuu yahay waa habeen fadiiladiisu dee si hayru caadiya qur-aanku uu tilmaamayo taasi markaa macnaheedu waxa uu sheegayaa inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam habeenkaasi man xurima khayraha faqad xurim buu nebigu yidhi ninka laga manciyo ninka la haleeshiin waayo ninka la solin waayo khayrkeeda kaasi waa dee waa khayr beelay weeyaan faqad xurim kaasi waa nin khayr beelay habeenkaa ninka khayrkeeda waaya ayuha alaxiba intaa waxaa raaca qur-aanka iyo akhriskiisa adkaartii inaanad ilaabin siibaa adkaarta ay ku soo aroortay nusuusta fadliga badan u sheegaysa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah astaqfir allah subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi adkaarta nusuusta qur-aankii ku soo aroortay iyo nusuusta sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamba oo qur-aan dabadii wax la akhriyo iyaga u fadli badan qur-aan dabadii wax la akhriyo iyaga u fadli badan waana nebigu ku tilmaamay inay yihiin carabka kuwa ku fudud alla agtiisana laga jeceliyey miisaankana ku culays badan waa 3 sifo 3duba cajab qabaan in la yidhahdo carabka oo ku fudud oo dee subxaana allah alxamdulilah subxaana allah alxamdulilah haddaad tidhaahdo wax lagu xiiqana maaha halkii minitna 100 jeer baad odhan kartaa subxaana allah halka minit 100 jeer baad odhan kartaa 100ka jeerna xadiidkii nasaa-i alyowm waleyla ku yaalay muxuu sheegayay markaasuu wixii 100 yidhahdo ama 100 halaad buu leeyahay xadiis caynkaasaa jiraa filaya weliba xasan culamada qaar kusii tilmaamaan calaa kullin fadliga ku soo arooray waa tiro badan yihi marka aanad qur-aanka akhriyayna tusbaxaaga rog wardigaaga wadoo maxay subxaana allahdaas iyo laa ilaaha ila allah iyo kuwaasi weliba iyagu waxay kaga cajab qabaan oo qur-aanka kaga gedisan yihiin iyaga fii kulli lxaalaat baa la akhriyaatee wayse uma baahna oo janaabo laga maydho uma baahna oo wakti uma baahna oo xifdi uma baahna oo waxbaba ay u baahan yihiin adoo galgalanayana waad akhriyi kartaa adoo fadhiyana waad akhriyi kartaa adoo soo jeedana waad akhriyi kartaa adoo weyse qabana waad akhriyi kartaa adoon weyse qabinna waad akhriyi kartaa waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ku yidhi sharaa'ic ulislaam ay igu tiro badatay
waxaad ii sheegtaa shay-un atahabbatu bihi buu yidhi atashabbathu bihi midaan ku dhago uun ii sheeg buu yidhi wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuu ka engegin ilaahay dikrigii ha ku qoyanaada uun waayo dikrigu waa waxa quray adigoo shaqooyin kaloo badan hayana raggaan qur-aanka qaybsanayni waa shaqo kastoo aad hayso wardigana waad iska wadi kartaa xataa gaadhigaaga markaad wadato wardigaaga waad iska wadi kartaa marka waa khafiif cala lisaan xagga allena waa laga jeceliyey miisaankana waxaa la yidhi waa ku culus yahay miisaanka aakhirana waa wax cuslaynaya ama dunuubtaadu hadday zabadulbaxri leegtahay waa lagu masaxaya buu nabigu ku tilmaamayay idan habeenada tobankan dambe maalintiina waa la wardiyi karaa maalintiina waa la soomi karaa laakiin habeenada fadli badan habeenka ayaa fadli badan marka habeenkii intii aada wardiyi karto iyo intii aada tukan karto iyo intii qur-aan aada akhriyi karto iyo intii aada ictikaafi karto badso shayguna dee marka uu gabagabada joogo waa huubada lagama tage waa lasii gebagabeeyaa marka ramadaan waa aakhirkeedii baynu joognaa mid dambena inaynu gaari doonno cidina garan mayso hays odhanin dhallinyaraatay curdanqaba uu ku cunaabay soomaalida laga sheegay yacni ma laha geeridu yar iyo weyn ma leh qof weynina waa dhintaa qof yarina waa dhintaa sidaa awgeed ramadaan dambe cid garantii haysataa ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadda markaad tukanaysaan baa la yidhi waxaad tukataa salaata muwadici sidii nin dunida ka tegaya tii kuugu dambeysay haddaad tahay saad u tukan lahayd waxaad ka soo qaadaa ramadaan tii kuugu dambeysay inay tani tahay ilaa ta dambe garan mayno inaynu tegi doonne tii kuugu dambeysay hadday tahay sidii aad usii daba goosan lahayd usii daba gooso wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin